waddaniyadu waa qofka oo mar walba u janjeera jacaylka iyo xushmadda waddankiisa isagoo isu dheelitiraya waxa uu qof ahaan ku bixinayo iyo waxa uu qof ahaan ka qaadanayo. shucuurta waddaninimo iyo dareenkeeda ayaa waxa ay yihiin arrimaha saldhigga u ah dhismaha qaran madax bannaan. qofku ma ahan mid la qaybsan kara shucuurtaasi dadka uu la nool yahay, laakiin waxaa hubaal ah mar kasta oo bulshada dhexdeeda ay ku kordhaan tirada dadka waddaniyiinta ah inuu qaranku xoogaysanayo, gaar ahaan marka ay kuwa xilalka sarsare haya ay muujiyaan mas-uuliyad ka dheer danaysiga iyo laaluushka. ummaddaasina si dhaqso ah ayay u hana qaadaa. su-aasha ah maxay tahay waddaniyadu ma ahan su'aal inta aad ka jawaabtaan misena aad ka gudubtaan, bal waxa ay tahay nafsadiinnii, noloshiinnii iyo nabaddiinnii. waa iyadoo loo joogsadaa dalka ee aan loo joogsan mas-uul xil haya. miisaanka guud ee cabbirka waddaniyadda ummadaha waa habka ay dowladda u dhistaan, dabadeed dowlad iyo shacab ay u wada shaqeeyaan. xilkasnimada ay ummaduhu kula xisaabtamaan dowladahooda iyo mabaadi'da ay ku dhistaan doorashooyinka ayaa iyana astaan u ah wacyigooda iyo horumarka ay haabanayaan. ma jiro waddan ka ayaan daran dal ay ku yar yihiin waddaniyiin, mana jiro waddan ka nasiib wacan dal ay dadkiisu inta badan yihiin waddaniyiin. waddaniyaddu waa inaad dalkiinna mar walba difaacdaan, dowladdiinnana markii ay xaq u yeelato in la difaaco aad difaacdaan. waa inaad faan iyo xishood wada socda dalkiinnu idinka helo inaad ku faantaan waxqabadka aad u gudaysaan, kana xishootaan dhaawaca danaysiga ah oo aad u geysanaysaan. waddanku waxa uu la mid yahay geed kaasoo ku dhinta ilmaynta kuna noolaada dhiigaynta. qofka waddaniyadda sheeganaya waa qof u shaqeeya ee maahan qof ka shaqaysta. siday hooyada idiin dhashay ayuu dalkiinnuna idiin dhalay, sidaa darteed baarinimada waddanka waxa ay la mid tahay baarinimada hooyada. waddaniyadda dhabta ah waa inaad dalkiinna la necbaataan cadaaladdarrida iyo laaluushka. munaafaqnimo waxaa u weyn mas-uul waddaniyad sheeganaya oo dalkii ku burburinaya laaluush uu bixinayo iyo laaluush uu qaadanayo. goorta uu qofku jecel yahay dowladda laakiin uusan jeclayn dalka waa goorta uu danaystaha yahay, laakiin goorta uu qofku jecel yahay dalka laakiin uusan jeclayn dowladda waa goorta uu diidan yahay musuqa ay ku kacayaan kuwa xilalka haya. waajibka ugu sarreeya oo qof waddani ah ka saaran dalkiisa wuxuu yahay inuu la diriro laaluushka siyaasadda. jacaylka dalka waa mid ka xoogan jacaylka kale dhammaantiis. qofka uma dhalan xanaanaynta nafsaddiisa, bal wuxuu u dhashay xanaanaynta dalkiisa. farxadka weyn ma jirto qofku kor tallaabsanaya ciid aanan laga lahayn oo aan laga sheeganayn. si kasta oo cagahaagu ay uga fogaadaan dalkaaga, qalbigaagu wuxuu ahaanayaa mid ku dhow in waddankani macaan yahay. qof aanan waddan lahayn ayaa ogaan kara. goorta oo waddanku sharaf helo ayaa dadkiisuna sharaf lahaadaa. dalkiinnu ma ahan mid mar walba xaq leh, laakiin idinku mar walba xaq ayaad ku leedihiin dalkiinna. ciddii idinka hor joogsata xaq ayaad u leedihiin inaad la dirirtaan. waxqabadka dalka waxaa ugu weyn inaad ku dadaashaan sidii aad isbeddel ugu heli lahaydeen wacyiga dadkiisa. laakiin isbeddelka xukuumadaha iyada ayaa iska imaanaysa. waddaniyaduna ma ahan oraah afka laga sheegto ama calan gacmaha laga ruxo, bal waxa ay tahay waajibaad dalka iyo dadkiisa lagu midaynayo, lagu xoojinayo, loogana shaqaynayo berisamaadkiisa. intaydaan isweydiin waxa aad ku leedihiin, isweydiiya waxuu idinku leeyahay. goorta aadan sidii gafanihii ugu noolaan, dalagga aad ka gurato dushiisa wuxuu ka wanaagsan yahay lacag aad ku haysato ciid shisheeye. waa arrin wanaagsan in waddanka dartiis loo dhinto, laakiin waxaa ka wanaagsan in waddanka dartiis loo noolaado.
ogaada dadku iyaga ayaa waddankii looma halgamo wax aanan la jeclayn lamana jeclaado wax aanan qadarin loo hayn haddaba waxaa isweydiin mudan sidee ayuu qofku u sheegan karaa waddaniyad iyo waddan jacayl isagoo aanan garanayn taariikhda dalkiisa iyo hayaanka dadkiisa waajibka waddaniga saaran waa inuu habeen iyo dharaar u howlgalaa siduu isagu isu dhisi lahaa dabadeed ummaddiisa u dhisi lahaa dalku ma burburo ilaa quluubta dadkiisa ay ka dhammaato dareenka waddaniyadda barta taariikhda dalkiinna iyo halyeeyadii u kacay idinka oo si mug leh ugu dadaalaya inaad dhacdooyinka taagan ula socotaan wax isbara oo isdhaafsada aqoonta xoojiya difaaca xuquuqda muwaadinka iyo xuquuqdiinna gaarka iska dheereeya laaluushka iyo danaysiga hana oggolaanina in laydin iibsado ogaada in qofku uu yahay waddan iyo qadiyad ugu dambayntiina ogaada dunidiinna waa waddankiinna